موسى بيحي إنانو قيب كاهين هنوع عدي إنو أرهن قيب كيهي إنو قيب آنو كاهين أما مدحوينو هسي وضو لقن كي هوري بموها يروتي عبورين تموادرين تا عبورين بدل ما ندريمين هدان موادرين تناي وانو شاقان إنا عباشا يدا موادرين تبان ماي وانو عبانينا وحانو كعبانينا بوليسكا وانو كعبانينا حد قدب يلو دانو كعبانينا وانو لكو حد قدبا يعني عدالة درها نقول عدالة ظلمي ما نقول عدالة الشعب كناي دمان مظلومين تو دمان كو هادلينا سيابا كلا دوب حد قدب كو دعا خوف با dadka ku dhacay Soomaaliland waxay ku salaysan tahay oo ay ku taagan tahay ay ku goodayba dulmidiid bay ku good dulmigii haduu soo noqdo maxay isbedelay Soomaaliland oo dhan gooni sutaageeda iyo nidaamkeeda oo dhan iyo waxa dadka maxaa laga iibinayo shacabka lagu qanciyo waxa weeye dulmi baa dhacay sidaas aynu ku goonay marka wixii haduu soo noqdo ka waran hadii lillaah xilligii maxamed siyaad barre dadka koox baa loo qabanay afartan baa loo leenayay imika hadii mid qiga u dhaxeeya waa maxay dulmigii meena soo noqon maxay ku kala duwan yihiin ma reer nimay ku kala duwan yihiin masiyad barna reer kale waha Soomaaliland haystana ma reer kala marka ma kala dhadhan ba ka muxuu ahay mesela anigu Cabdi Maalig aan isku reernahay ma dhadhan ba muxuu ahay dulmigiisu ma macaan ba ka kale ma qaraad ba dulmigu waa dulmi yani runtii waxaan u baahanay xorriyad tacbiir baan u baahanay xaqiiqatan inaanu cabirno fikirkayga cabirno madaxweynaha cusub waxaan ku codsanaynaa inuu arrinkan wax ka bedelo waanu cabanayna qofkii hadla waxa weeye waa xarig imika maanta ugu dambeysay aan dabcasar ka hadlayay waxa weeye waxa lagu hanjibay xarig fariimaha ajibaad intaas oo dhaweey ma jiray waana aamusi jiray ma sheegi jiray shalay xalo ugu dambeysay dabcasar marka la raadinayay anigana waa la raadinayay saaka anigana waa la raadinayay waxa la doonayay la xiro waxba ma sheego boqolaal jeer baan ka badbaadnay qorshayaal badan baanu aragnay la soo maleegay ilaahay baa maxaa naga badbaadiyay ruuc bay dadki ku nool yihiin dadka qaar ku nool yihiin khaasatan dadka aragtida leh argagax bay ku nool yihiin lama doonayo waxaan doonaynaa ilaahay baa na siiyay xorriyada tacbiir inaanu si xor u noolaano fikirkayga cabirno kifaaya yani waxa weeye maaha adigu hibaad siisay ama xil hay ama hayn ama muwaadin noqo ama ha noqon maaha yani waxa weeye wadanka waan u dhashay anigu reer Burcaan ahay reer Soomaaliland baan ahay Soomaali baan ahay Soomaali oo dhan man jecelahay aragtideedan odhan karaa waxa weeye yani inaan anigu ahay reer Burco oo aan ku barbaaray halka oo aan buuhoodla ku dhashay oo aan maxaa Burco ku weynaaday oo aan Yemen tagay oo maxaa wax ka soo bartay oo aan 12 sano ku maqnaa oo aan soo noqday 2003 oo ilaa imika aan Burco aan ka maqnaan sanad gudiyaana ka maqnaan 2 bilood 3 bilood 3 bilood 10 cishan ka maqnaa Burco ilaa 2003 waa intaan xidhnaa aan jeelka ku xidhnaa يعني laygama sheegan karo maalin kasta lama oran karo waxa weeye qarannimada ka soo horjeeda war qarannimada ka soo horjeedno waxaanu ilaalinayna dalkan ilaalinayna waxaanu ka bilownay halganka Ethiopia diidanahay ma aha in naga goysaan maxay Soomaaliya oo dhabta noo saartaan Ethiopia inaad Soomaaliya naga soo goysaan oo aad Ethiopia dhabta noo saartaan cadaalad ma aha oo aad tirahdaan Ethiopia 100% bay qaadanaysaa dekadeeda cadaalad ma aha يا أخي وحاسد كقدودين أسنا وحاسد كقعدي ظلمي بي كقعدي هنقول سعودنا ظلمي وانو ديدني وحوان كعطنا مدحوينان عصب إلا دورتي مدحوينا مسبح أما دقن كي هراكو سعو أرجعي حانو كنا علين دتك ما لو سو دعي دتك لقب قبني عدالة درة دعسي دتك لودي بإثيوبيا تبوتي سيدي كوسي ود أما وحكبت يا أخي كفاية حرية تعبير مجنون دتك واحد نقدن عبيد marka arrinka hada sid dadkii waxa weeye waxay noqonayaan cabiid bay noqonayaan waxay kuna wal wixiraya bay koranayaan marka hada shii xorriyada tacbiir hada shii dawladda wax ka sheegtid waa lagu xiraya dadkii heerkaas ay marayaan la waxa weeye ma doonayna inaan saan noqono waxaan doonaynaa inaan aragtideeda ka hadalno inaan si xor ah u hadalno wad mahadsantiin waxay daawanayaan 9200 qof baad daawanaya waxa weeye yani waxa weeye scoorkii ugu weynaa raqam qiyaasiga ugu weynaa dad daawadaan runtii aad iyo aad baad mahadsantiin dadka ay daawanaya جزاكم الله خير وحنو جدا سقالكم يلا بقول وين سكيب بدن كرتا وحوي ما هيسنو رنتي يعني بين يعني لسه شيء والله ما هيسنو حرية التعبير يا أخي وحوي إلا ما نتي ليس هودا أي حرقة إلا إمك وحوي حرق بانك بقية يعني وحوي ضد باتشرك إلى تشوق ضلك ديجي أو اللاعية ساسية جنيا خلط بيدوني يقول قبطان ضد باوشقية دلك له ضد باوشقية مجا Soomaaliland sheeganaya oo Ethiopia u shaqeeyay oo ila doonay xarig
oo iga doonayana kiisu igu qabtaan oo ay weeciyaan aragtidayda anigu Soomaaliland kama soo horjeedo waxay weecinayaan aragtidayda aniga iyo saaxiibaday waxay weecinayaan xoran qarannimadu ka soo horjeeda kama soo horjeedo intaasaan ku gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolaalka iyo kumanaanka dad ee daawanaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan Dabcasar baan noqonaya Cabdiraxmaan Dabcasar waxa weeye waxaanu dalbanaynaa 9600 bay marayaan waxaanu dalbanaynaa oo inta daawanaysa waxaanu dalbanaynaa Cabdiraxmaan Dabcasar xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa ka dalbanaynaa madaxweynaha siiba inuu si sharaf leh u soo daayo Cabdiraxmaan waa inuu soo daayaa waxa weeye waa nin daacad oo qalbi wanaagsan oo beela Soomaaliyeed dhammaan beelaha dhan buu dhalila wala isaaq buu si gaar ah u dhalila wala Soomaaliland buu si gaar ah u dhalila yaa gobonimada laga raaco ninkaas waxa weeye nin ilaahay yaqaan wallahi kelinimada markuu joogo aan live ka ku jirin toos ku jirin nin ka cibaado badan ka akhris badan quraan badan ka degan ma arag anigu ka aqli badan 10 kun bay marayaan dadkii maxay ay daawanay scoorkii ugu weynaa ma sha Allah waxa weeye waa ilaahay mahadi waxa weeye Cabdiraxmaan waxaan ka codsanayaa madaxweyne Muuse Biixi runtii waxa weeye nin aan anigu ka dareemay in badan oo wanaag oo gudihiisa ku jira waxaan ku tuhunsanay runtii wanaag baan ku tuhunsanay xaqiiqatan waan kala saaraya maxay dadka xad gudbaya iyo madaxweynaha kala saaraya waxa weeye ilaa iyo madaxweynuhu uu raaco markuu raacana aragti kale ka yeelanaya waxa weeye waxaan ka codsanayaa inuu isla bariba ninka la soo daayo sharaf loo soo daayo xasaasiyad bay leedahay arrinkana waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa reer Soomaaliland oo dhan iskuma raacsana xariga Dabcasar madaxduna iskuma raacsana dadku iskuma raacsana dhammaan waa laga soo horjeedaa ninka saa wuxuu leeyahay ninka la daayay qaar waxa leeyahay ninkaas meel lagu celiyo meeshiisii haddii wax yaan wax loo geysan ma Mareykankii lagu celiyo oo loo tarxiilo aragtiyo kala duwan bay qabaan macni way ka xun yihiin xarigiis way ka xun yihiin xad muxuu ahaayay in lagu xadgudbo shirkiisa lagu xadgudbo intaas oo dadku way ka xun